بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن داوديال halkani waa channelka wararka dunida qodobada wararka xiisaha leh ee aan xiliga kan idin hayna waxa kamid ah gudoomiyaha golaha shacabka oo ku dhawaaqay la xisaabtan kana xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaba in guux uu ka dhashay warbixintii hanti dhowrka qaranka ee 18 milyan hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha golaha shacabka waan idin haynaa iyo wasaaradda maaliyadda oo si gaar ah loogu dhagan yahay Puntland oo qaaday tallaabo ka dhan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maxay tahay tallaabadaasi muxuu tallaabo u qaaday Saciid Dani waan eegi doonaa Cabdirashiid Xidig oo kamid ah madaxweynayaashii isku doortay Kismaayo oo heshiis la saxiixanaya Axmed Madoobe muxuu ka kooban yahay heshiiskani maxaa duruufo ku kalifay Cabdirashiid Xidig inuu heshiis la galo Axmed Madoobe waan eegi doonaa qorshe kale oo Axmed Madoobe ka bilaabay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi oo magacaabis cusub sameeyay maxay tahay magacaabistaasi waan idin haynaa qodobadani ayaa doorkeena ku daawan doontaan daqiiqadaha soo aadan rabbiga weyn hadii laga helo saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan janalka subscribe ku ahada daawade si aad mar walba u hesho wararkeena xiisaha leh ee aan janalkeena idinku soo gudbino haatanna daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu faray gudiyada ka dhisan golaha shacabka in ay la xisaabtanka xukuumadda federaalka Soomaaliya kordhiyaan guddi walibaana ee shaqada kala dhaxayso wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya oo xiriir toos ah iyo wada shaqeyn u la yeesho sidoo kalena soo ogaado shaqada wasaaradda ee wada shaqeynta kala dhaxayso Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo hadal ka jeedinayay kulankii golaha shacabka ay shalay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee ku dhaxtaal madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday in xildhibaanada golaha shacabka howlaha ay u xil saaran yihiin sida dastuurka ku qoran ay kamid tahay la xisaabtanka xukuumadda taasina ay ka gaabiyeen gudiyada kala gedisan ee golaha shacabka balse gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan gudiyada dhisan in ay waajibaadkooda dastuuriga ah gutaan guddi walbana looga baahan yahay in uu soo baaro shaqada ay hayso wasaaradda shaqada kala dhaxaysa ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa gudiyada qaar magac dhaway guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayuu ugu baaqay in ay waajibkooda dastuuriga gutaan sidoo kalena wada shaqeynta kala dhaxaysa wasaaraddaas ay kordhiyaan sidoo kale waxa gudoomiyaha baarlamaanka uu gudiyada ugu baaqay in wasaaradda ay ka shakiyaan ay hor keenaan golaha shacabka si su'aalo loogu weydiiyo hadalka gudoomiyaha baarlamaanka ee iminka ka soo yeeray waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhawaan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'ado kale oo ka tirsan dawladda xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka uu ku eedeeyay musuqmaasuq lacag gaaraysa 18 milyan oo dollar walow markii dambe hanti dhowraha guud ee qaranka Master Afgooye uu dib ka hadlay hase yeeshee hadalkiisii hore ee warbixinta warka duwan uu ku hadlay warbixintii musuqmaasuqa ee ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa shaki weyn dhalisay maadaama madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay hore u shaaciyeen in la dagaalanka musuqmaasuqa ay xil iska saarayaan warar imanka soo baxaya ayaa sheegaya in wasiiro uu kamid yahay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ay u badan tahay in ay ku dhagaan golaha shacabka isla markaana uu ka soo hormuuqan doono kulamada soo aadan ee golaha shacabka si wax looga weydiiyo howlaha wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sida caadiga ah golaha shacabka waxa ay qaabilsan yihiin sida uu dhigayo dastuurka iyo xeerhoosaadka kale ee golaha shacabka saddex shaqo oo kala ah matalaadda shacabka la xisaabtanka xukuumadda iyo sameynta wax ka beddelka shuruucda waxaana gudoomiyaha baarlamaanka uu sheegay in kalfadhigan lixaad ee golaha shacabka looga baahan yahay in howlo fara badan ay ku qabtaan Puntland waxa ay qaaday tallaabo ka dhan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa amartay in albaabada loo laabo xafiisyo oo laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya muddo ka hor ay ka furteen deegaanadaasi ay ka soo jeedaan ee Puntland xafiisyadaas oo ay ku sheegeen wasiirada halka ka furtay in ay u qaabilsan yihiin ogaanshaha baahiyaha ay qabaan dadka deegaanka ee goobahaas wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland
ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in aysan sharciyad u soo marin wasiiradaas xafiisyada ka furtay deegaanada Dhahar iyo Galdogob oo ka tirsan maamulka Puntland. xafiisyadaasi ay amartay Puntland in la xiro ayaa waxaa furtay wasiirada kale ah wasiirka qorsheynta iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya kuwaasi oo kale ah Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiir Sadiiq Warfaa. qoraalka ka soo baxay Puntland ayaa sidoo kale digniin loogu diray cid waliba oo doonaysa in xafiisyo ay ka furtaan deegaanada maamulkaas in marka hore ay soo maraan hay'adaha kala gedisan ee Puntland si loo hubiyo. talabadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo Saciid Dani uu dhawaan dib ugu laabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland xilli uu ku maqnaa maalmihii la soo dhaafay Kismaayo halkaas oo uu kaga qayb galay Cali Masaarki Axmed Madoobe. warar kale oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Saciid Dani uu shaki weyn ka qaaday xafiisyadaasi kuwa dana gaar ah ay wasiirada kale yihiin oo ah abaabul ka dhan Puntland. mana jirto wax war ah oo ka soo baxay wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay kaga jawaabeen go'aankan cusub ee ka soo baxay maamulka Puntland. markana haddii aynu eegno halka iyo magaalada Kismaayo kulan irdaha u xirnaa ayaa gudaha magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa uu ku dhaxmaray siyaasiga Cabdirashiid Xidig iyo hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo doorashadiisa ay qaadaceen dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka. kulanka oo si gaar ah ugu dhacay madaxtooyada maamulka Jubbaland ayaa labada mas'uul waxa ay kaga hadleen khilaafka ka dhaxeeya taasi oo ka dhalatay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo. ilo ku dhow dhinacyadaas ayaa inoo xaqiijiyay in Axmed Madoobe uu aad isugu dayayo qancinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wax waliba ha ku qaadatee. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa Cabdirashiid Xidig ka codsaday inuu tanaasulaad sameeyo isla markaana uusan Jubbaland u soo horseedin wax waliba oo caqabad ku noqon kara dadka iyo deegaanka Jubbaland. xogaha kulankaasi laga helay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in Cabdirashiid Xidig iyo Axmed Madoobe ay kulan kala dib ugu balameen waxaana hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo Cabdirashiid Xidig u balan qaaday lacag fara badan si uu u tanaasulo. kulankan ma ahayn mid lagu casuumay siyaasiyiin kale balse Axmed Madoobe si gaar ah wuxuu casuumay oo kaliya Cabdirashiid Xidig. marka laga soo tago Cabdirashiid Xidig waxa sidoo kale jira siyaasiga Cabdinaasir Seraar oo ciidan fara badan isaguna ku haysta magaalada Kismaayo waxaana uu Seraar ka mid ahaa siyaasiyiintii Kismaayo kaga dhawaaqday in ay yihiin hogaamiyaasha Jubbaland. lama oga Axmed Madoobe in silamida sida Cabdirashiid Xidig oo Cabdinaasir Seraar kulan ula qaadan doono ama in kale. magaalada Kismaayo ayaa aad looga hadalhayaa kulanka irdaa u xirnaa ee madaxtooyada Jubbaland ku dhaxmaray Cabdirashiid Xidig iyo sidoo kale Axmed Madoobe. hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ee doorashadiisa muranka uu ka taagan yahay ayaa culeysyo fara badan waxa ay ka haystaan dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo qabaa'ilka ka soo jeeda deegaanada Jubbaland. waxaana Axmed Madoobe haatan ku dadaalaya sidaan wararka ku heleyno sidoo isaga yareyn lahaa culeyska dhanka gudaha Kismaayo ka haysta ee siyaasiyiinta iyo odayaasha kale ee ka aragtida duwan. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa magacaabis cusub sameeyay. madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa guddi u magacaabay muranka ka taagan dhul beereed ku yaala deegaanada Somaliland. wasiirka wasaaradda horumarinta iyo biyaha Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo gudoomiye ah guddigan uu magacaabay madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa xubnaha ku jira waxa kamid ah wasiirka biyaha Somaliland Salebaan Cali Koore, wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Somaliland Xasan Maxamed Gaafadhi, wasiirka beeraha ee maamulkaasi Axmed Muumin Said, wasiirka gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Somaliland Naasir Aydiid, wasiirka caafimaadka Somaliland Cumar Cali Cabdullaahi. gudoomiyaha guddigan la magacaabay wasiir Salebaan Cali Koore oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay safar ay ku tagi doonaan goobta xiisada ay ka taagan tahay deegaanka Gargaara. ayaa sheegay in shaqada ugu horeysa ay qaban doonaan ay tahay la kulanka dhinacyada ay xiisada u dhaxayso si arinta jirta baaritaan ugu sameeyaan. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay isku soo dhaweyn doonaan dhinacyada xiisadu ay ka dhaxayso sidoo kalena ay nabad ku soo dabaali doonaan goobta xiisadu ay ka taagan tahay. deegaano badan oo Somaliland ka tirsan ayaa waxa ka taagan xiisado kala duwan oo u dhaxeeya beelaha ku nool deegaanadaasi.
warkii aad kala socoteen daawadayaal channelkeena wararka dunida xilligan waa naga intaa daawashada wacan ee warka waad ku mahadsantihiin nabadgelyo.